السلام عليكم. maanta sheekadan idin wada waa sheekadii ugu xiyaabka badnayd ee Soomaalidu qurba joogta ay ku dhacday. sheekadan waxay tahay inan 34 jir ah bay qurbay tagtay aduu qurba markay tagtay dadka la faayir yar ee iska jinkeer bay ahayd 13 sano isku dhiibtay. kadib markay 13 sano isku dhiibtay inan baa jiray muddo dheer oo socdeen da'deed dacaad u yaqaaniyo inankii wuxuu hadda soo dhiibto daasad caash Yurubtan isku kursan way hibitay aabaheed u dirtay. aabaheed markii lala hadlay leeyahay inantii waa la soo doonay baa wuxuu yiri inanta see la iga guursadaa inanta laba wiil la iimay dhoof laba gurna iimay dhisan xajka dhima hadda tag maxaa ninkan iyo waxaan ma siinay maamadii waa bido tiri inanta waa 34 jir ubad bay rabtaa ee iska dhaaf iska guursatay waa kaso mid kale inanka guursanay ayaa intaaba ku sameeyay ma soo baadeen hawal soo baaday adigu maxay tisaa ku sameeyay bas marka inanka horta arrintaas markay ku dhacday ayuu heesto tiriyay bal aan dhigeysiiyay sugayn yar Hababigi nartahay ana ku bareerayo because aniga ku jecel mama da isparanayo iyadu waa besti waban baradalka muhumayn ولكن أبها محوئك باريا وي محوئك باريا ماما دايس بارانايو يدوى أتستي وبحيهم براد الكام محوئين لكن أبها محوئك باريا حدوئك بادوايو برقي صلح ماضو وحانهي وي وحانهي ها وحانهي أيما sheekada waa fahanteen wuxuu yiri maxay haytay maamada waa isbaranay iyadu waa best women brother ka muuxmayn bad laakiin aabha muxuu iga baarayaa hadii uu iga baaqan waayo oo breegiisuna xumaado aniguna waxaan ahay baar waan xumaanaya sheekada horta inanka heesta soo qaaday hadaba inankii maxaa ku dhacay markii uu gabadhii isaas loo siiyay heesaha tiriyo dunyada kala kiciyay inankii uur bay gabadhii yeelatay ilaa wasdix isman jir mogtahay inantii markii dhaqaatiirtii wixii arkeen baa waa maxay uurkani yaa ku siqir suujiyay alla inantii waa la siqir suujiyay ninkii baa la raadiyay ninkii markii la raadiyay baa la soo telefoonadii waa la baaro waa la qriyay kadib waa la soo helay markii la soo helay baa inankii maxkamad loola cararay hadda arrintii waxay taagan tahay inantii hadday taado anigu 34 jir baan ahay Yurub baan isku dhibay sharciga ku qaadanayay waa la musaafirinayo dalka laga saaraya inankii hadii la aamusay inankii maxkamadda ku jiraayo waxa la xeerka qoyska qabtayo waa kaas maxkamadda ku jira marka sheekadaas imka yaaba dadka yaraanta isku dhiibay ee lafaha yaryar waa dhibaatadaasi leeyihiin inanka hadda maxkamadda ku jira ee wuxuu ku jira xabsi ku jira maxkamadda baa la soo tagay xulay ilmeer baa siqay suujisay iyada waa naxsantahay haday sheegto 34 jir baan 13 kan waa isku dhiibay wadanka laga musaafirinaya xaaladii ugu yaabka badnayd baa imka halkaas ka taagan sheekada waa sheeko runa waxa ila soo wadaagay liibaan diiriye in la yiraahdo oo Jarmalka jooga iyo saaxiibkiisa oo hadda magaciisa baa iga yaran saaxiibkiisa laakiin saaxiibkiisa ayaa ila soo wadaagay oo kuba dhex jiro iyo ku dhex dhinto marna inantii iyo inankii iyo maxkamadii iyo hawlihii oo dhan ku mashquulsan marka qurbaha waxa ka dhacaya waxyaabo badan dad yar la isku dhiibaya